waxay ku tiri indhihiisa ilaali oo sankiisa ilaali oo dhegtiisa ilaali dhul u noqo cirbu ku noqoni hooyo u noqo aabbu ku noqoni walaashii oo kale u noqo walaalkaayo kale ku noqonaya saddex dab oo raggu aynan hayn karin bay dumarku naga hayaan shahwada raggu waa dab وأسماء بنت يزيد دردارنت inanteeda ay siinaysa dhageyso boolkii aad ku jirtay waad ka baxday tiri waxaad ku hooyanaysaa caawa aqalka waliga horumaad arkin shakhsiga aqalka aad kula kaliyoobi doontana horay umaad arkin bay ku tiri shakhsiga aqalka caawa aad kula kaliyoobi doonto arooska la kaliyoobaysa waxay tiri ninkaadaas haddeeto la mas'uuliyadii isaga la wareegay laakiin waxay ku tiri indhihiisa ilaali waxay ku tiri indhihiisa ilaali oo sankiisa ilaali oo dhegtiisa ilaali dhul u noqo cirbu ku noqoni hooyo u noqo aabbu ku noqoni walaashii oo kale u noqo walaalkaayo kale ku noqonaya hooyo u noqo sida hooyadu ilmaha ugu naxariisato ninkaaga hadaad ugu naxariisato sida aabbuhu ilmihiisa ugu damqado oo u biiliyo u dhaqaalayo isaguna ku dhaqaalayn walaashii oo kale u noqo walaalkeeda way jeceshahay sida walaashu ay walaalkeed u jeceshahay u ilaalinayso hadaad u ilaaliso ninkaada sida walaalku walaashii cadowga uga difaaco uu uga warhayo isaguna kaaga warhayn bay ku tiri dhul u noqo oo dhulka waxa lagu yaqaan sabir iyo adkaysi buu leeyahay hadaad ninkaaga dhul u noqoto isaguna samuu ku noqono korku kaafu saasuu ku haray bay ku tiri waxay tiri saddexda hore waan fahmay saddexda dambe ii macnay bay ku tiri hooyo macaanay sankiisa ilaali maxaa uga jeedaa waxay tiri adoo udgoon mar walba ha ku yimaado adoo carfu udgoon lahe ha ku yimaado ninkaadu indhihiisa ilaali bay ku tiriyo marka uu ku imanayo wax ka farxiyo mooyaan wax ka careysiya yuunan ka arkin bay ku tiri dhar qurux badan ha kuugu yimaado akhlaaq wanaagsan ha kuugu yimaado dhaqan wanaagsan ha kuugu yimaado hadal wanaagsan ha kuugu yimaado طبيعات wanaagsan ha kuugu yimaado aqal wanaagsan oo nadiif ninkaagu ha kuugu yimaado waxay tiri dhagtiisa ilaali maxaad uga jeedaa hadal xun waliga ninkaadu inuu ka maqlin qalu firso waata jaamacadu aqalku waa jaamacad hooyadu waa murabbiyad hooyadu mar waa muallimad hooyadu mar waa warshad hooyadu mar waa murdica oo naaska ilmaha nuujinaysa hooyadu 20 ubada intay dhex fadhiisato ayay mid walba raali gelin sifada raggu ma leh laakiin haweenka sifada iska leh raggu ilmo kaliya ma hayn karaan laakiin waxay hayn karaan ma taqana haweenku 20 ubaday haweeneedu intay dhex fadhiisato ka bukana dawadaysiin ka gaajoonay cunadaysiin ka dharka u baahan dharkay ka badili ka isku kaadse kaadida ka biini ma cadaalika hadana odaygeegiyo hurdana quraac iyo biyaha iyo shaahay u diyaarin ayadoo sooman walibana ay intaasoo dhan maalintii qada u karin waa yar daadii lagu soomay iyo kuma gaadhin waa 2 jir waa 3 jir waa 4 jir waa 5 jir waa 7 jir waa 8 jir mid walba quraacii bay siinaysaa qadadii bay siinaysaa odaygu laga yaabaa maalintii inuu saacada ka seexdo marka uu sooman yahay haddana 10 kalo afurayso aqalka ku afuri doonta cashadoodii iyo afurkoogii iyo biyahoogii iyo shaahoogii iyo cuntadoodii bay haddana hooyadu diyaarinaysaa sifada raggu ma yeelan karaan hooyada uunbaa khilaafada Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ayaa nin bay xaaskiisu hadal adag ay ku tiri dana ninkii baa yiri Umar ibn Khattab haweeneydan wixii laga yeeli lahaa ka talagaliyo kala tasho dana markaas uu yimid Umar ibn Khattab isaga laftigiisa aqalka dhexdeeda lagu haysto la canaananayo markaas uu ninkii banaanku ka maqlay Umar oo laftigiisa la haystaba wuxuu adiga hadalkii lagu lahaa waaba fududaaye hadalka Umar lagu leeyahay culayskiisa maleeg buu yiri عمر بن بلايا هيستاي تأذيك كو هيستا بالله قاتول تا عمر هيستا وابا عليس بتيس آير بوس كان نقضي بالي نينكي عمر با مركا مقل شنقديسي عمر uu soo baxay ninkoos ka socdo arka oo yari war kaale maxaa doonaysa maxaa u socotay ii sheeg wuxuu yiri wixii aan la socdayba wax ka daran adiga ku haystay buu xarabtay xaaskaygii baan rabay inaan kaala tashado هذا لا أنفعنين بيقول ترادا
si aan wanaagsaneyn bay ila dhaqantaa de markaan arka adiga sida lagu la hadlaayo taydii waxayba noqotay buu sheekad bay noqotayba marka Umar ibn Khattab ayaa ku yiri sida aniga layla hadlay mad maqlaysa ha waan maqlaayay buu wuxuu dhageyso fariiso saddex dab oo raggu aynan hayn karin bay dumarku naga hayaan shahwada raggu waa dab ayaka naga haya buu yiri dharigu waa dab ayaka dhariga inoo kariyo raashinka inoo kariya ubadka hayntooduna waa dab inaku ma hayn karnay ayaka haya marka maalin markay nagu yar qayliyaan nagu qarxaan iska sabreenaa iska socod ku yiri dadka ajaib bay hayeen dad waxay hayeen nabi maxamed uu dhisay calayhi salaatu wasalaam asmaa bint abi bakr as-siddiq radiyallahu anhum ayada hooyadeed aabaheed dhamaan raalli allah ka wada noqdee ayaa u timid aabaheed abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu waxay kaga ashkatoonaysaa ninkeeda Zubayr ibn Awwam waa nabiga inaabtigi weeyaan waana tobankii jannada loo bishaareeyay nin kamida weeyaan marka bay tiri aaba Zubayr hal layga furo oo ninka hal layga fasaxo waayo waxay tiri uu idilaa marka labaadna waxay tiri xagga gacantana waa ku adag yahay wax bixinta oo masaariif ugu filan ima siiyay tiro dharna iima iibiyo dharka ugu dulgoogo ay arag bay ku tiri marka Abi Bakr Siddiq sidaas uu eegay inantiisii Asmaa lama ooyin kama nixin wuxuu ku yiri aaba Zubayr ma taqaana cid uu yahay waa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam ina abtigi weeyaan waana tobankii jannada loo bishaareeyay nin kamide aaba ninkana janno u socdaa jannada hal la gashide iskaga sabir buuri nolosha adduunyada waa yar oo kooban wax dhis dadkaas waxbay dhisayeen dadka zamankeena ka warrama sida wax loo dhiso iyo sida wax loo dumiyo midkee Soomaalidu taqaana sida wax loo dumiyo xariifiin ku nahay sida wax loo dumiyo raggoogi haweenkoogu waxay haayeen dad wax dhisay haayeen dad wax dumiya ma hayn lana mujtamac nabi maxamed baa dhisay calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed caalamka diyaaradana kuma soo kordhin maraakiibna sida loo sameystay kuma soo kordhin petrolka iyo naftada arlada ku jirta sida loola soo baxana kuma soo kordhin daymanka sida loo baarana kuma soo kordhin nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam hubkan wax gumaadee adduunka gaaladu ay samaysatana kuma soo kordhin nabi maxamed wuxuu ku soo kordhiyay caalamka sida dadka bini aadamka loo islaaxiyo looga shaqeeyo loo dhiso ee dadku dad wanaagsan u noqdaan buu nabigu ku soo kordhiyay caalamka dad wanaagsan buu ku beeray adduunka dad wanaagsan dad ilaahay yaqaana oo rasuulkiisa yaqaana oo bini aadamka xuquuqdooda yaqaana oo meeshay ka yimaadeen yaqaana maqsadkii loo keenay adduunka yaqaana meeshay u socdaanna yaqaana cidda samaysatee keentayna yaqaana dadkaasuu nabi maxamed adduunyada ku soo kordhiyey dad wanaagsana dad ilaahay yaqaano akhlaaq wanaagsan leh oo naxariis leh oo cadaalad leh oo kala dambayn leh oo maxabba leh oo ixtiraam leh oo isku damqanaya oo isku naxariisanaya dadka abu nabi maxamed adduunyada ku soo kordhiyay calayhi salaatu wasalaam inaga zamankeenan dad badan waxay leeyihiin horumar baa la gaadhay waa zamankii horumarka may horumar ma gaadhin bal zamankan waa zamankii dib u dhac weeyaan dib baan u dhacnay hoos baan u dhacnay hoos horumar waxaa gaadhay mujtamacii magaalada madiina ku noolaa uu nabi maxamed uu dhisay uu tarbiyadeeyey waa mujtamacii asxaabu muxammadin sala allahu calayhi wasalam man kaana mustannan falyastanni biman qad maata ciddii cid ku dayanaysa buu yidhi ibni mascuud raggaa dhintay ha ku daydaan raggee abi bakar iyo cumar iyo nebi maxamed saxaabatu rasuulillaahi ha ku daydaan dad buu nebi maxamed intuu dhisay dadkaana waxa uu nebi maxamed uu ka dhisay marka u horeysa oo xagga caqiidada xagga ilaahay macrifadiisu ka dhiso qalbiga